waxaan u sheegaynaa in cagjar iyo maamulkiisa in hawiye oo tashtay ka tashtay aayihiisa u tashtay in uu daris kala nabadgeliyo aayihiisana ka tashto waxaan u sheegaynaa dadkaasi ayaga ah ee horkacaya cagjar ee dhibaatada aan loo xagdayn shacabka hawiye ku haayo cagjarow hawiye wuu tashtay haddii shalay ay jiifeen haddii shalay dhax qabsanayeen maanta ma jiifaan dhaxna ma qabsan doonaan waxaan ognahay dhibaatooyinka baahsan ee qowmiyadda hawiye lagu haayo ee degta kilalka shanaad fiiri degmada iimay bari waxaan ognahay xilligii Tigray ay la wareegtay xukunka waxaan goobjoog ilaahayga isameeyay aanas dambi iiga qoreynin in helicopter la qaatay lagu soo raadinayo 2 asbuuc halkee degan yahay reer amaadina oo la isku keenay duube oo hogaaminayay ugaaskii xilliga joogay ugaas ulex dalmar iyo rag aan ka xasuusto xasan butay aan ka xasuusto in ay hogaaminayaan dhinacan duuba dhinacan reer amaad waxa hogaaminaya in Cabdibile ragaas ayaga waxa la isku keenay jiq maalinkaas waxa goobjoogahay Axmed Cabdikariin oo ay xildhibaanka reer federaal ee ka mataqaanaa dowladda Soomaaliya kamid ahay ee goobjoogahay maalinkaas raggii maalinkaas diyaaradda lagu doonay ee lagu keenay degmadii maalinkaas diyaaradda lagu keenay ayaan caawa ku hurdi kareynin qabala kuleeyeen koobana waa qabala koob wax kuleeyeen wax yar waa guris waan wada naqaan wadanka waa isla garanaynaa maanta waxa ilaahay xog marka inaan godayna ku hurdo email ku hurdi waayo goday waan ku hurdaa email aniga iska leeyahayna ku hurdi karo yaa marka iska le arintaas yaa sababay waxa sababay madaxda iskaaga dambayso xukunka dowladda Soomaaliya oo u dambeeyo in cagjar ilay eray u Iran sheegaya maanta ayaantii dib ahayd curashada ayaa wax ku tagnay jigjigo wuxuu yiri odaageelo dhageysto waxa idin sheegay nimankeeda sheeqaash ama fogo Umar loo yaqaan maalinkii ay guurayeen haddaad horseexan lahaydeen dhibaatada maanta ka dhacday meeshaas kama ay dhacdeen ee hadda nimankan celiya dhibaatadii uu maalinkii Cabdi Ilay ka digay maanta ay taagantay ka diri doontaa insha Allah waxa kale oo yaabkiisa degmada iimay galbeed niman kale reer afgaab oo hadda afdheer la baxay afkii gaabnay noo dheereeyeen way u martay ana waxaan naqaan afgaab laakiin waxayna afdheer nimankii afka gaabnaay oo xabad qabale ku lahayn ayaa hogaankii nabadgelyada ee degmada iimay galbeed ayaa waxay u keeneen nin aan aabi ku qaban dagaal ninka maanta ka ah iimay galbeed ka ah hogaanka nabadgelyada aabi waxa lagu qabtay dagaalkii Burdaxoor hawiyaha waa gob marka aabi qabanay waxaan sameeynay gabadha loo guuriyay gabadhii loo guuriyay wiilkay dhashayna dulkeenan maanta waxaan leenahay marka haddaan shalay ka hurdeynay aan arki leen maanta waan aragnay waan arki doonaa insha Allah waa ka tashanaa baasha ka tashanayso waa qodob waxa leeyahay cawliyahan gabadhay sidaan u sheegay hadalka u day halka ka jarin waxa leeyahay cawliyahan waan isnaqaan adeer in aad haweysataan halkii laba xildhibaan ku leeyeen kililka in aad haweysataan waxay reexa mar dhahaan doora min ku xaartay wax loo yeeli waaye in xildhibaankii karanle hawiye karanle ku tashanayay in la yiraahdo gabar cawlahana la geenaya waa doora min ku xaartay wax loo yeeli waaye ma dhacayso absolutely hawiye ka tashanayo karanle ka tashanayo waana loo dhimanaya arrintaas iyada insha Allah والله دمانايا مستحيل لaba baar aaga oo daga hawiye markii la xuduud dheer ee Soomaaliya waxaan la wadaagnaa galgaduud ilaa majeerteen ku geey ilaa iyo ku keen qurac joom inta dhaxay hawiye ku meersan Oromiya ka bilow qarsaadula ama baashmaasha nageele saas u mari beesha hawiye waxay ka kooban tahay 90% waa Oromo maanta waxaan shalay ka hurday naftusteen odaagoon idinka naftusteen waxaa la yiri hebelow qajafta qoriga jibis qajaftiisa ka ordin waxaad ogaan doonteen marka oo hawiye ku tashanaya
oon aqooyahanka culamaa u diinka dhalinyarada hooyooyinka waxgaradka kuma tashanayno in aan dhiig islaam galno ku laakiin waxaan tashanaynaa in aan aayahayna ka tashano oo aan la mid noqono sida qoomiyadaha ku dhaqan ama qabiilada kilka shaqo ku dhaqan xuquuqda ay leeyihiin inaan yeelana fiiri qarsaduula waa degmaha weeye nin laga keenay kor oo ayaa lagu raali gelinayaa gudoomiyaha degmada qarsaduula waxa lagu raali geliyay inashada waa sheegayna baasha inashida ayaa cagjar ku raali geliyay oo yiri walaalo gudoomiyaha degmada qabsada shubdhe waan ognahay gudoomiyaha degmada population ka degmada ognahay xuduudda la yaqaan Soomaali way saqana meel joogtada haddana laga fiirsaday oo xildhibaanada saddexda email galbari ka soo baxo xibina ayna duuba qaadanin xibina kala la qaadanin xibina nimanka hadda xaaraanta ku ayna qaadanin suurtagal ma noqon doonto insha Allah inaan ka hurdo mar dambe waxaan yeeli doonin duldagal isduldagaayo waxa laga soo rarayaa mataqaana meesha la yiraahdo leesha guriska kor daaqadka kor inta laga soo raro barmiil inta laga soo raro balmiil ayaa waxa la keenayaa qurac la korkeeda qabala weeye shalayna maxay ahayd garaadarana garba dhuuray soo dageen ayaa shalay dhihi jiray garaadarana garba dhuuray soo dageen waxa la yiri marka waa dalkaada doqonyo waa dadkaada dabaalyaho waa digniine isdaryeelo dadka soo raac waxaan u digaynaa marka ragga maanta jooga xukuumadda kilka shanaad in agjar shalay wuxuu joogay oo magan u ahay hawiye qaasatan baash karlo magan u ahay markuu jooga xamar oo ka tagay waxa lagu raali geliyay markii asaga walaalkii oo si xun oo la dhaqmay ninkii la jiray Cabdi Ilay wadhibaatadii agjar oo shalay aad ka soo oraday aad magangeliyada noogu timid aan adigu kugu magangelinay in aad anaga maanta nagula kacdo aad shalay kaaga baanay adeerka ma siisanayno ogow hawiyahana ma qaato waxyaalaha qaarkood qashinka ma qaato in hawiya xamar ka tagayo waxa u dambeey macallin Axmed Kaamil nin la yiraahdo macallin Axmed Kaamil waan naqaana macallin Axmed Kaamil wuxuu ahaa nin macallin dugsi ah wuxuu ahaa nin karan la ah macallin dugsi waa ahay deegaanka ka soo jeeda email aada u yiri markii la joogo ma taqaana meesha la isha mustaxiil ayaa dhab la sii madaxa basbaas loo gali wuxuu ku xiran yahay hadda goday waxa baxay ugaaskii karanle oo hogaaminayo wafti waxa la Soomaaliya bax iyo boqor ugaaskii karanle ayaa baxay waa ragga xaqdarada ku xiran soo deey waa yahay oo dhaa lama sheegin waa iska soo diray laakiin waqti wuxuu og yahay inay waxba qaban kareynin laakiin waxaan u sheegaynaa in cagjar iyo xukuumadda deegaanka waliba feere ciidamada booliska ee new booliska la yiraahdo waa ciidamo ka kooban dhammaan qoomiyadaha dego kilka shanaad ay ka kooban yihiin haddana maxay u adeegaan qaab qabiil ay u adeegaan waxay u adeegaan beesha odaageen ka soo bilow dawa cali markii ayaan u tala galay isaaq meeshiis yaa lagu galay waxay ahaayeen ciidanka qaranka ilaa kilka shanaad marka duu yahay oo ciidanka qaranka kilka shanaad waay dawa cali waxa lagu baabi'iyay ciidankii qaranka raaso inta iiday inta sheegay raaso ayaantii lagu guuray ee dawlad deegaanka dhamaan ay ku guurtay ee baabuurkii degmada garbal lagu qabtay raaso lagu qabtay wax u kala harama jireen waxa baabilay waxa hayeen ciidamada dawladda deegaanka ay ahaayeen kalaafay ku galeen oo ay ku galeen guriga la yiraahdo Golweyn waxaan leenahay marka dhibaatooyinkii intaas leeg ee qoomiyadda beesha badaqana qoomiyadda beelaha hawiye lagu haayo adeer hawiye way tashanayeen federaalkana kama xigtid waa noo dhaxeeya abi axmed wajan oo tagna waan haysanaa waxa alla mahadiis ah 99% in ay beelaha hawiye ku hadlaan afka oromada assalaamu calaykum wa rahmatullahi